بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده وأشكره فهو الغفور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أوفرها ليوم النشور. أرجو برها وذخرها والفوز بها بدار القرار. أرجو برها وذخرها والفوز بها بدار القرار والنشور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحانياشيني إن شاء الله تعالى أي نكوقا سوقادنيني بشهر رمضان إيا فضائش هذا ما أنت نوحا كغهلينا بإذن الله تعالى فضل تلاوة القرآن الكريم في رمضان. أخرنتا بشهر رمضان قرآن كالله أخري فضلك كجرة. يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، وحآد مستحب إن لبديه أخرنت قرآن كريم ومدارسته في رمضان إن لبرته قرآنك لنا أخريه فضلك كجرة. ويستحب أيضا الاجتماع في المساجد من أجل تلاوته. waxaa mustaxab sunno waxaa wanaagsan in masaajidda laysugu yimaado si qur-aanka akhrintiisa ee halkaas loogu kulmo oo lagu kulmo oo lagu wada akhriyo. qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ma ijtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaah, ma jiraan dad isugu yimaada guryaha ilaahay ka mid ah, yatluuna kitaab allah xaal ay ku akhriyayaan ilaahay kitaabkiisii, wayatadaarasuunahu baynahum ayna isku barayaan dhexdooda kitaabkii ilaahay ay isku barayaan. ilaa haddii ay jiraan qoom sidaa yeela, meel isugu yimaada, qur'aanka ku akhriya, isku bara, nasalad calayhim sakiina, sakiina ayaa ku soo degta, xasilooni ilaah ayaa ku soo degta. waqashiyadhum araxmatu, naxariista ilaahay baa daboosha. waxafadhum almalaa'ikatu, malaa'igta ilaahay baa isku soo dayra. wadakarahum allahu tacaala fii man cindahu, ilaahayna wuxuu u sheegaa malaa-ulaclaha, malaa'igta iyo arwaaxda ku sugan ayaa ilaahay u sheegaa, yidhahda addoomadaydii waa kuwaas, waxay qur-aankii isku barayaan oo ku akhriyayaan guryaha ilaahay ka mid ah. meel kasta oo ilaahay qur-aankiisa lagu akhriyayo hadda waa beytkii ilaahay. waqad warada ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yatadaarasu alqur'aana bayna yaday jibriila leylan. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam sida soo aroortay wuxuu qur'aanka ku baran jiray malaku jibriil hortiisa habeen walba. fa fi lleyli yatajalla sakiinatu walunsu, habeenku wuu ka duwan yahay maalinkii oo habeenkii waxaa faydma oo qofka u daahira ilaah ee xasilooni iyo wehel. wayasfu fikra almar'i mimaa yucakiruhu, waxaa saafin noqda qofka fekerkiisii awil ku jiray, mugdiga ku jiray oo aan saxda ahayn, ayaa habeenkii wuxuu noqonayaa mid nadiifa. fekerkaagii ayaa soo ururaya awal carqaladaysnaa oo laga yaabo inuusan awal sax ahayn. wayustaxabu aydan an yatadahara almuslimu wayatawajaha ila alqiblati xiina talaawatihi, waxaa aada u wanaagsan qofka muslimka ahi markuu qur-aanka akhriyayo inuu weese qaato, inuu cadaydo, inuu si fiican u labisto, inuu markaas qiblada u jeensado markuu rabo qur-aanka inuu akhriyo. wayajuusu waxaase u bannaan an yaqra'ahu inuu akhriyo fii axwaalihi jamiican, xaalad kasta oo uu ku sugan yahay qofku inuu qur-aanka akhriyo. ahnaa'a qiyaamihi, marka uu taagan yahay, wa qucuudihi markuu fadhiyo, wadijaacihi
marka uu jiifo wa rukuucihi markuu rukuucsan yahay fahuwa min dikri illahi tacaala ilahay dikrigiisuu ka mid yahayo qaala tacaala ilaahay baa wuxuu leeyahay aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuudan wacalaa junuubihim kuwa waxa weeye rabbigood xusa iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyo iyagoo dhinac u jiifa iyagoo mar walba qur'aanka kuwa akriya weeye ilaahay dikrigiisa waayo qur-aanku waa dikri ilaahay marka sidaas darteed waa tii xadiidka nebigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa la odhanayaa qofka muslimka ah waxaa lagu odhanayaa markii uu qur'aanka kii akriyi jiray sida xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen iyo axmed iyo cabdullaahi binu cumar cabdullaahi binu camr binu caas baan leeyahay radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sal alay wasalama qaal yuqaalu waxaa lagu odhanayaa liqaari'i lqur'aan qur'aanka qofka akriya iqra wartab qur'aanka akri oo kor salaan sare u bax waratil kamaa kunta turatil fi dunyaa u kala nadaami oo u qurxi saad adduunka u qurxin jirtay qur'aanka fa ina mansilatuka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa darajadaadu aayaddii ugu dambaysay akriyo ayaa darajadaadu tahay saas oo kale xadiiskii ibnu maajah ee sunankiisa ku warinayey iyo imaam axmed ee abi saciid alkhudriy radia allahu tacaala canhu yuqaalu lisaaxibi alqur'aan qur'aanka qofka akriya waxaa la odhanayaa markuu idaa dakhala aljanna markuu jannada galo iqra' wascad ayaa la odhanayaa akri oo fuul darajo sare u bax fa yaqra'u wayascad bikulli aayatin daraja wuu akhriyayaa markii hal aayad uu akhriyaba darajo sare ayuu u baxayaa qofkaasi xataa yaqra'a aakhira shayin macahu ilaa uu akhriyo aayadda ugu dambaysa ilaa uu ku akhriyo marba jaranjar hor leh ayuu usii baxayaa fadli weyn ayaa ku sugan marka qur'aanka akhrintiisa gaar ahaan bisha ramadaan akhrinta qur'aanka waxaa ku sugan fadli aad u weyn oo hadda bisha tanba waxaa la yidhaahdaa waa bishii shahrulqur'aan ayaa lagu magacaabaa bishii qur'aanka akhrintiisa ayaa lagu magacaabaa marka qof kasta oo ina ka mid a rag iyo dumar qof yar iyo qof weyn waxaa la akriyaa waxaa la waajib ina ku ah qur'aanka akhrintiisa ayaa waajib ina ku ah mar walba inaynu akhrino ayay tahay iyadoo ay tahay ayaa bisha tanna waxay sii tahay wax aad iyo aad mustaxab u ah qur'aanka akhrintiisu waa mustaxab weeye oo sidaas laynoo leeyahay aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim qur'aanka inaad akhrido oo ilaahay aad xusto adoo taagan adoo fadhiya adoo dhinac u jiifa wayanaalu lmuslimu mathuubatan akbar cinda tilaawati alqur'aani bitadabbur qofka muslimka ahi wuxuu gaarayaa darajo aad u weyn oo u sarraysa markuu qur'aanka u akhriyo si tadabbura isagoo macnihii u fiirsanaya oo eegaya oo dhowraya baxaysu yafhamu maa yaqra' isagoo markaa fahmaya waxa uu akhriyayo macnaheedii aayaddii naxariista aayaddii cadaabka aayaddii dembi dhaaf dalabka mid walba inuu markuu akhriyayo ay aayaddaasi saamayso ayaa laga rabaa qofka muslimka ah wayatamathalu lahu qur'aankii wuxuu farsoomayaa markuu tadabbur u akhriyo wuu farsoomayaayo faya'tamiru bilma'muur wuxuu amarkiibuu qaadanayaa qur'aanku siinayey qur'aankii ayuu qofka kani farsoomayaa markaasuu amarkii qur'aanku siinayey ayuu qaadanayaa wayantahi can ilmanhiyi canhu wuxuu ka reebayana wuu ka harayaa wayastaciida min almucawadi minhu wuxuu ilaahay ka magangelayaa wixii ilaah laga magangelayana ilah buu ka magangelayaa wayasalu llaha alhudaa waljanna ilaahay wuxuu weydiisanayaa hanuun iyo janno wabihada yakunu alqur'aanu xujatan lah laa calayhi qur'aankii markaas wuxuu noqonayaa mid isaga u doodaya ee noqon maya qur'aankii mid ku doodaya maxaa yeelay qur'aanku imaa xujatun laka ow calayka qur'aanku ama xujuu adiga kugu yahay berri aduu kugu doodin ama aduu kuu doodin labada midun weeye idaafatan ilaa ana asiyaama walqur'aana shafiicaani lisaaxibihimaa yowma alqiyaama qur'aanka iyo soonku labaduba qiyaamada waxay u ergoonayaan qofkii soomi jiray iyo qofkii qur'aanka akhriyi jiray
qur'aankii iyo soonkii ayaa u ergoonaya oo xagga ilaahay ugu dacwoonaya faasiyaamu yamnacu saaxibahu min alطacaami waasharaabi waashahwa soonku qofka wuxuu u diiday iska hortaagay inuu wax cuno inuu wax cabo wixii naftu jeclayd inuu sameeyo oo dhan waalqur'aanu qur'aankuna yamnacu saaxibahu annawma fi lleyl inuu habeenkii seexdo ayuu qur'aanku u diiday habeen barkiiba u kacayaa waa dadku barayaa marka qofkaasna waxaa u diiday hurdada inuu seexdo waa qur'aanka dartiis labadaasi marka waxa weeye iyagaa qiyaamada u dacwoonaya oo ilaahay u hortegaya qur'aankii iyo soonkii liyaqra'ahu waqad madaxa rasuulullahi sal allahu alayh wasalam ahla alqur'aan nebigu wuxuu ammaanay dadka qur'aanka ehelka u ah wax la sameeyo waxa ugu wanaagsan isaga weeye maxaa yeelay waman yu'ti alxikma faqad uutiya khayran kahiira qofkii ilaahay xikma siiyo diin siiyo ilaahay wuxuu siiye khayr weyn qofka intaa hadduu arki waayo ilaahay nicmaduu u galay ayuu qofkaasi xaqiray oo liiday waxa la siiyey qofka ilaahay diin siiyo wax ilaah bixiyo wixii ugu wanaagsanaa ayaa ilaahay siiyey marka qofku haddii uu taa garan waayo wuxuu noqonayaa qof ilaahay nicmadiisii xaqiray ayuu noqonayaa marka nebigu wuu ammaanay ahla alqur'aan aladiina yaciishuuna macahu kuwa qur'aanka la nool qur'aanka akhriyaya wayaqra'uuna aayaatihi qur'aanka aayaadkiisa akhriyaya wayatadabbaruuna macaaniihi macnihiisana u fiirsanaya ilaahay kuwaasuu ammaanay faqaala wuxuu yidhi rasuulku khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan qof qur'aanka bartay oo dadka baraya kaasaa idinku khayr badan waqad ajzala almawlaa subxaanahu wa tacaala lahum alcataa ilaahay wuxuu weyneeyey xuma ka hufnaaye kuwaas waxa uu siiyey wax weyn buu ilaahay ka dhigay fataraqaa bihim tilaawatum ila darajaati alculaa fi ljanna akhrinta uu qur-aanka akhriyaayo ayaa kor yeelaya oo wuxuu u kor yeelaya akhrintaasi waxay u kor yeelaysaa darajaad aad u sarreeya ayay u kor yeelaysaa kamaa anna bikulli xarfin yaqra'uhu lmuslimu min kitaabi illahi xasana sida hal xarafa oo qofka muslimka ah akriyo oo kitaabka ilaahay ka mid a uu hal xasanaada uga helayo walxasanatu bicashri amhaaliha halkii xasanaadana waxaa 10 u dhigma ayaa ilaahay ku siinaya halka xaraf kasta oo qur'aanka ka mid a oo aad akrido halkii xarafba ilaa 10 buu kugu siinayaa 10 xasanaadba halkii xaraf lagugu siinayaa halkii xasanaadiina 10 ajri baa ilaahay kugu siinaya wallahu caza wajalla yudaacifu ajra qaari'i alqur'aan ilaahay wuxuu u labanlaabaa qofka qur'aanka akhriyaya ajrigiisa iyo abaalkiisa iyo thawaabtiisa ilaahay waa u laba jibaaraa watadabburu alqur'aani yadcuu ila atafakur qur'aanka oo loo fiirsado macnihiisa la dhuuxo waxay qofka ugu yeertaa inuu fekero wa kulamaa qara'a almuslimu almasiid min alaayaat mar kasta oo qofka muslimka ahi oo in dheeraado aayaada akriyo zaada iqbaaluhu cala allahi tacaala waxaa u kordhaya inuu xagga ilaahay u jeensado inuu ilaahay qaabilo ayaa mar walba u siyaadaysa waa limaa yaraa min athawaami almumtadi aladii acadahu allahu licibaadi almuttaqiin maxaa yeeley wuxuu arkayaa abaalmarin aad u ballaaran oo u taagan mar walba isaga diyaara oo ilaahay u diyaariyey addoommadiisa muttaqiinta ah wuxuu qofkaasi arkayaa abaalmarin ballaaran ilaahna u diyaariyey addoommadiisa muttaqiinta ah qur-aanka dhexdiisa ka helaya wamaa acadahu allahu min alcadaabi lilkaafiriina aladiina kharajuu can daacatihi tacaala iyo waxa ilaahay u diyaariyey oo cadaaba gaalada ka baxay oo diiday ilaahay daacadiisii wabayana tilka alaayaati jamiicahaa aayaadkaas ayaa ilaahay arrimahaas oo dhan aayaadka qur'aankaa buu ku akhriyey buu ilaahay ku caddeeyey oo qofka muslimka ahi uu akhriyayo dacwat allaahi cibaadahu ila tawba waxay ugu yeeraysaa waxaasoo dhan waxay u caddaynaysaa qofka aayaadka u akhriyaayo baa waxay u caddaynayaan inay aayaadkii ugu yeeraan ilaahay cibaadadiisa iyo toobadkeenka wa kullu dalika yu-addii bihi ila annajaati min ciqaabi illaahi dhammaan intaasoo dhani waxay gaarsiinayaan qofka in uu ka badbaado ilaahay ciqaabkiisa
والفوز برضوانه إلهي رضيه سنة وكقول يستو كل بانو أي يغيريان رمضان شهر القرآن بشهر رمضان وبشي قرآنك الذي أنزل الله القرآن الكريم إلهي قرآنك شرفت بدن وكسو دجيي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد كيني محمد إلهي وكسو دجي ولبا في العشر الأواخر طبنك وقد مية وإن هدف ودك سيقلنينه ومن شهر رمضان المبارك كمده طبنك وقد مية وبشهر رمضان دحديدا أي قرآن كلا سودجي قال تعالى إلهي وعيري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مالمها سوما الليل ليهي وبشهر رمضان تيت الذي أنزل فيه القرآن قرآن كلا سودجي هدى للناس حالي هنون أطهي وبينات من الهدى يعدين هنون كالله عدين والفرقان كربحين حق يبادل كلا كربحين قرآن كاني إلهي وسودجي هنون بودتك وياي وددي هنون كو عدينيا حق يا بادلك وكلا صاريا وفي ليلة القدر تحديدا قارهان وحا قرآنك اللي سودجي هبين ليلة القدر أي إلهي سودجي قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه وحا نسودجي إن قرآن كان هبين شرف بدن أو ليلة القدر اللي يراده ومما يدل على ارتباط القرآن الكريم بشهر رمضان وأهمية تلاوته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضه على جبريل عليه السلام في رمضان من كل عام وحيابها كتصيريا قرآنك إنه حرير لليه أو كحريا بشهر رمضان هي أهمية أي ليدها أخرنت الله أخري قرآنك نبينا عليه الصلاة والسلام وعها هبين كسته وحوسه بندقي جري قرآنك ملك جبريل أو رمضان هبين كسته أو رمضان قرآنك وحوسه بندقي جري بشهر رمضان هبين كسته أو كمده وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين سندكي نبينا الله أفصدي لبا جور أيو أصو بندقي لبا جور أيو النبي أصو بندقي ملك جبريل عليه السلام وقد خص الله تعالى شهر رمضان بالنزول القرآن فيه إلهي وحو خاص كغدقي رمضان بشهر رمضان إلهي وحو خاص كغدقي واختصاص كأيلاد هاي كم ذا إلهي قرآن كسودجي فقيل وحا ليري إن الله أنزله إلى السماء دفعة واحدة في رمضان ما اللوح المحفوظ أي قرآن كاللغا سوقاضي إساقو أو إسكتلن أو وحا لكيري سمدة لو قركيال أو بيت العزة ليرادو أي لكيري هبين رمضان ثم أنزله مجزعا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تبدأنا إلهي قرآن كوحو كسودجي إساقو قيب قلبك النبي ayaa 23 sano nabiga qalbigiisa ayaa marba qayb lagu soo dejinayay marba dhacdadii timaada qaybteeda ayaa nabiga lagu soo dejinayay calayhi salaatu wasalaam 23 sano faqiila waxa la yiri in awwala nuzulihi soo degidiisa bilowgeedii kaana wuxuu ahaa fi shahri ramadaan buu ahaa wa fi laylatil qadri tahdiidan gaar ahaan habeen laylatul qadri yahay وقد كان السلف الصالح سلف كي وناكسنا وحي أهايين يظهرون اهتمامهم بالقرآن في هذا الشهر الفضيل بشة فضل قبضا أهمية قارة أي سينجرين قرآن كأخرنتيسة أهل السلف الصالح سقارة أي أدنا ينجرين قرآن كأخرنتيسة بشة آتك إلهي أفضل أي رمضان فمنهم وحاكم ذا من كان يختم القرآن كل 10 أيام طوانك أيام وضبة مدبا دمين جري ومنهم وحا كمدها في كل 7 أيام تضودي مع المضبا مدلمية ومنهم وحا كمدها كل 3 أيام صدحدي مع المضبا مدمر دمية لقنك وكلا دوانا وحا لغيابا tobankii cashaba mar quraanka inuu dhameeyo midna toddobaadkiiba mar inuu dhameeyo ama 3 maalmoodna mid inuu dhameeyo waxa kamid ahaa sida imaam Shaafici oo kale waxa la yiri quraanka wuxuu akhrin jiray bisha Ramadaan 60 goor buu dhameyn jiray la yiri 60 goor waxa laga yaabaa in wax Ilaahay u sakhiray inay ahaydo waa dadka la yiraahdo dhaxaada balla akhriya kuwa la yiraahdo kamid ahaa مسائل المتعلقة بقراءة القرآن الكريم في رمضان. أشكال قراءة القرآن الكريم في رمضان تختلف أساليب ومظاهر قراءة القرآن. مسائل
qur-aanka akhrintiisa ku xiran bisha ramadaan oo waxay leeyihiin qaabab iyo muuqaalo kala duwan loo kala akriyo ayaa jira iyaguna waxaa qur-aanka akhrintiisii bisha ramadaan ama qur-aankaba asal ahaantiisa akhrinta la akriyo waxay yeelanaysaa qaabab iyo habab iyo muuqaalo kala duwan oo qayba ah waa arrintaas oo ah biikhtilaafi gaayati alqaari'i minhaa marba qofkan akhriyaya yoolka qur-aanka akhrintiisa uu ka leeyahay wa taakhudu alqiraa'atu tabican lidaalika ashkaalan cidda marka qaadashada uu qaadanayo qofka kan qaariga ahi arrinta uu qaabka uu qaadanayo oo qur-aanka u akhriyayo ayaa markaa waxay noqonaysaa qaabab kala duwan bayaanuhaa fii maa ya'ti sida qaababka wax loo kala akriyo waa sida tan imanayso qiraa'atu thawaabi waalkhatmi mid wuxuu u akhriyayaa qur-aanka inuu dhammeeyo ajri iyo thawaabna uu ka helo qirada uu akhriyayo waxa weeye aad ka hesho qur-aanka aada dhammayso oo aad thawaabteedii hesho wa bi haadihi dariiqa qaabka waddadaas sidaas yahdifu lqaari'u wuxuu uga jeedaa qur-aanka thawaabna aad ka hesho aadna dhammayso waddadaas ujeeddadeeda qaarigu uu ka leeyahay waxay tahay ilaa qiraa'ati akbari qadrin min suwari alqur'aani wa aayaatihi waa akhrinta qadarka ugu weyn ee suuradaha qur-aanka iyo aayaadkiisa inuu qur-aankii dul maro dhammayo soo bilaabo dhammayo saas buu u akhriyayaa waalmuruur calaa kalimaatihi wa xuruufihi inuu xarafki xuruuftiisii iyo kelimaadkii uu wada dul maro xataa yakhtima alqur'aana kullahu ilaa qur-aankii dhammaystiro wa yukariru dalika ma stadaaca ilaa dalika sabiila saasaana jid u ah oo uu celcelinayaa markuu kasta oo dhammeeyaba waxa weeye markuu dhammeeyo oo khatimaba wuu soo bilaabayaa kaas marka isaga waxay tahay ujeeddadiisu inuu horta maro qur-aanka suuradihiisii iyo aayaadkiisii iyo xuruuftiisii iyo kelimaadkiisii oo dhammeeyo oo saa ku celceliyo intuu kari karo saasaa waddo u ah wahuwa bidaalika yarjuu taxsiila thawaab tilka alkhatamaat ujeeddadiisuna waxay tahay inuu helo abaalmarinta dhammaystirka ah abaalmarinteedii inuu helo oo thawaab weyn uu saa ku helo kamaa qaala rasuulullahi sal alay wasalam sida nebigu u yidhi man qara'a xarfan min kitaabi illaah qofkii akhriya hal xaraf oo kitaabka ilaahay ka mida falahu bihi xasana xarafkii uu akhriyaba xasanaad buu ka helayaa waalxasanatu halkii xasanaadna bicashri amhaalihaa 10 la mida ayuu ku helayaa laa aquulu oran mayo buu yidhi rasuulku alif laam miim xarfun waa hal xaraf oran maayo intaasi walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun alif laam miim alifku waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf halkii xarafna xasanaad hal xasanaad baad ku helaysaa halkii xasanaadna 10 ajri baad ku helaysaa ويعد هذا الشكل من القراءة الأكثر انتشارا بين عامة المسلمين أخرين النوع عاسية مقابك الله أخريه واتن أقبضا كفافتي جود أهان مسلمين تدحديدا قفوا إنه قرآن كأخريه وثوابتها أسياده اللي ثوابتها أتكيشد مركز لما يسبه وحويه وصوب بلوده وصاكو وضو واسيدا أقفرها بضا جود أهان مسلمين تو الله أخريه ولما ورد في الحديث من أن الثواب فيها يناله كل قارئ من غير ضرورة الوقوف على فهم الآيات ودلالته وحوية حديثك سيدو إنوع عدينيو أجربوا هليا وقفة كان أخريا وحو قاريا فضل يدي الثواب تدي وهليا إساقو عن واحد باطاء عن واحد باهية أوهين إنو استاقو وآيات الفهم كذا يوحى أيش تلماميسو إنو فهمه isagoo aan u baahnayn akhrinta uu akhriyayo lafdiga uu akhriyayo xataa macnihiisa hadduusan fahamsanayn akhrinta uu akhriyayo ayaa ilaa wuxuu ka gaarayaa thawaabtii iyo ajrigii iyo khayraadkii oo dhan uu ka gaarayaa qofkaasi waxaa ku xigta qiraa'atu tadabbur wa ta'ammul qirada la yidhaahdo u fiirsasho iyo kaadsasho wa tahdifu haadihi alqiraa'a qiradaa waxa ujeeddadeedu waxay tahay إلى التفكر في كلام الله تعالى قفك إنه كفكره كلامك إلهي وكل ما جاء به القرآن إيا وحا قرآنك أوليمي ومن المأمورات أمر هذا أكفريه والمنهيات
waxyaabahu kaa reebayo walirshaadaat waxyaabuhu kugu hanuuninayo wahiya min afdali anwaaci alqiraa'aat waa tan ugu fadliga badan baa la yidhi akhrinta qur-aankana taasi qofku inuu macnihii u fiirsado qur-aanku aayadtani maxay tilmaamaysaa amar bay bixinaysaa tani maxay tilmaamaysaa waxbay reebaysaa tani maxay tilmaamaysaa waxbay kugu hanuuninaysaa tani maxay tilmaamaysaa qisay kaaga sheekaynaysaa qur-aankii wax aayad kasta waxa ay tilmaamayso ayuu u fiirsanayaa cilman inagoo og annahaa waaridatun taasi inay tahay tii ilaahay uu inoo ku tilmaamay ee ku soo aroortay fii qowlihi tacaala kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun waa kitaabka aanu kugu soo dejinay nebi maxamed oo aan ku soo dejinay horta waa mid barakaysan maxaa lagugu soo dejiyey liyatadabbaruu aayaatihi inay aayaadkiisa u fiirsadaan kani waa kitaab aanu adiga kugu soo dejinay oo barakaysan liyatadabbaruu aayaatihi aayaadkiisa inay u fiirsadaan waliyatadakkara inay kuwaana qaataan ulul albaab asxaabi alcuquul kuwa caqliga leh inay ku waana qaataan wayushaar ilaa ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam kaana qad qaama fii leylatin wa qara'a fiiha suurata albaqara wa aala cimraan waannisaa mutadabbiran iyaaha wa mustaciidan mima jaءa fiiha min aayaati الtakhwiif wasaa'ilan allah alraxmata fima jaءa min aayaati الtargiib waxaa la yidhi sidaas waxaa tilmaamaya rasuulkii ilaahay ayaa habeen cibaado ilaahay u kacay baa cibaado ilahay buu isu taagay nebigu markaasuu wuxuu akhriyey suurata albaqara suuratu aala cimraan suuratu nisa mutadabbiran iyaaha isagoo aada ugu fiirfiirsanaya wa mustaciidan ilaahay ka magangelaya mima jaءa fiiha waxaa aayada suuradaha ku sugan oo min aayaati takhwiif ah aayadaha cabsigelinta ee digniintu ay ku jirto isagoo ilaahay ka magangelaya wasaa'ilan allaha araxma isagoo ilaahay naxariis weydiisanaya fiima jaaa wixii yimaada oo min aayaati targiib aayadaha khayrka iyo ducada xambaarsanna ilaahay waxa ay tilmaamayaan ilaahay weydiisanaya waqad saara calaa hada nahji fi lqiraa'ati almufasiruuna mundu zamani asaxaabati ila zamani alxaaliy wadadaa waxaa qaaday oo maray qaariyiinta mufasiriinta ah laga soo bilaabo xilligii saxaabada ilaa maanta aynu joogno lianna camala almufasir alasaasiy mufasirka shaqadiisa asaaska ay waxay tahay huwa tadabburu kalaami illaahi tacaala wa ta'amulu fiih inuu fiiriyo oo aada ugu fekero kalaamka ilaahay macnaha ku jira fatadabburu yucaddu alrakiizatu alasaasiya licilmi tafsiir u fiirsashadu baa la yidhi waa tiirka ugu adag oo cilmiga tafsiirka waa wadada ugu adag oo ugu qaalisan qofkan mufasirka ahi inuu u fiirsado kelimaadka ilaahay macnaha ay xambaarsan yihiin wayandariju taxta hada الnowc min alqira'ati ma yakunu liajli alqaayaati albaxhiya walakaademiya waxaa soo hoosgelaya noocaas baa layidhi qolyaha kan qaariyiinta ah oo qur-aanka ku sameeya baxhiga researchka iyo muxuu ahaa baaritaanka dheer ku samaynaya ayaa iyana soo hoosgelayo aayadda tani maxay xambaarsan tahay waxaa laga yaabaa hal aayad oo keliya in macnaheeda laga alifo kumanyaal mujallad oo kitaab ah oo ay ka hadlayso muxuu ahaa dhinacii nolosha adduunyo tii aakhiro farsamadii caalamka dhan hal aayada marka qoladahaas researchka samaynaya ee muxuu ahaa baaritaan ku samaynaya mufasiriinta darajadooda ayay soo hoosgelayaanoo iyagana waxa weeye u fiirsasho iyo ukaadsi aayadda tani maxay ka hadlaysaa muxuu yaha macnaha ay tilmaamaysaa ilaa qof walbaba ilaahay fahan gooniyaa laga yaaba inuu ka siiyo calaa maraatibi takhtalifu biikhtilaafi alhadaf min alqira'ati iyadoo ay kala duwan tahay yacni ujeedooyinka ay ka leeyihiin akhrinta ilaa midba meel buu ka imanayaa wa ikhtilaafi almustawa alcilmiyi lilqaari iyo heerka aqooneed kala duwanaanta ay kala duwan tahay qofka akhriyaya marba heerkiisa aqooneed inta ay gaarsiisan tahay qiraa'atu lxifdi baa ku xigta qirada la yaha qirada xifdiga walmuraajaca iyo ku noqnoqoshada qofka kani inuu dusha ka qabto unbuu rabaa oo xifdiyo
ويتم اتباعها من قبل الذين يحفظون القرآن غيبا taasi waxa weeye waxay khusaysaa ama raacitaankeedu uu yahay xagga dadka qur-aanka raba inay dusha ka qabtaan waqaayatuhum yoolkoodu wuxuu yahay fiiha ilaa jaanibi alajri tathbiita alqur'aani fii suduurihim wuxuu yahay yoolkooda inay gaaraan horta ajrigii inay helaan oo qur'aankii ku hayaan oo ku xifdiyaan xabadkooda min khilaali tikraari alxifdi wa tardiidi alaayaat iyagoo aayaadkii celcelinaya oo xifdigii ku noqnoqonaya wahiya mas-uuliyatun kabiira taqacu calaa caatiqi xufaadi alqur'aani alkariim taasina waa mas-uuliyad saaran dadka xaafidulqur'aanka qur'aanka inay halkaa ku hayaan maxaa yeelay waxaaba laga yaabaa adduunka ama iman doontaba in mar loo baahan doono oo ay dhici doonto xaafid qur'aanka haya inta inkastoo ilaahay uu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa ilaashanayna annagaa magacisayna haddana sida maanta kutubtii loogu dhex jiro oo la rabo in wax loogu daro waayo kutubtii kale o dhan xadiiskii iyo kutubihii kale waxbaa lagu soo dhex daray laakiin qur'aankii weli waa ilaashan yahay laakiin waxaa soo socota aakhiru zamanka aynu ku jirno in qur'aankii naftiisii ama waanuba aragnay kitaabo aayaad badan ka maqan yahay kitaab ka maqan yahay marka waxaa laga yaabaa aayadda halkaa ka maqan dhexe qofkii xaafidka ah mooye qofkii kale inuusan bedeleynin sidaa darteed waa mas-uuliyad saaran luqunta dadka xaafidulqur'aanka